waxaad ka soo ogaan kartaa dadka iska leh oo la yaqaan marka waxa leedahay anigu waan ka baxnay xisbiga Kirista dadka la yaqaan ee meesha iska leh wala yaqaan qoys caana iska leh kiradii cidda isiisun soo weydii intii uu socday ololaha doorashada Somaliland ee aad ku jirteen idinkoo xisaabtii adiguna aad afayeenka xisbiga ahayd wasiirkii dastuurkan aad ahayd wasaaradaadu maadaama ay kamid tahay waxyaabaha mamnuuca tahay in loogu ololeeyo doorashooyinka ama xisaabta tartanku ka dhaxeeyo ay shuruucda dalkan ay sheegayaan waxaad u bedeshay xarun xisbiga kulmiye ku ololeeyo mid kamid ah meelaha ay wasaaraddu leedahay oo ah qaybtii barashada dastuurka adigoo ka dhigay xarunta mutadawiciinta xisbiga kulmiye wasiirkii dastuurkan waa tahay dastuur jabintaas maxaa ku kalifay horta aan ku saxee waa laba arrimood marna qodob dastuuriya la jabiyaa marna hantidii ummadda ka dhaxaysay ayuu xisbi si gaar ah ugu tasarrufaa sida xeerarka ay sheegayaan soo waxaan dhamma dastuurka ma hadlayo waan ku soo wada iminka waxaad ka hadashay xarunta dastuurka ayaa waxaad u bedeshay xarun xisbiga kulmiye ku ololeysisto jawaabtaada kooban ku siinaya goobtaasi goob dawladda qaranku leedahay maaha laakiin yaa ku shaqaysan jiray yaa u kareysnayd wasaaradda u kareysnayd waanu ka baxnay anagu maxaad caddayn ma dadka waanu ka baxnay ha cidda annaga cidda naga soo horjeeda ee waa lagu ololeystay ha soo bandhigaan heshiiska ilaa maanta ku jiro laakiin wasiir anagu intaan ognahay warbaahinta ogtahay dadka caadiga og yihiin bulshada u shaqeynaysan og yihiin inay xarun wasaaradeed ahayd baa looga wasaaraduhuna xarumaha way kareystaan amaba iyaga leh oo dhista oo degan xaruntaasi shaqo qaran baa lagu hayay waxaad ka soo ogaan kartaa dadka iska leh oo la yaqaan marka waxa leedahay anigu waan ka baxnay xisbiga Kirista dadka la yaqaan ee meesha iska leh wala yaqaan qoys caana iska leh kiradii cidda isiisun soo weydii way marka waxa leedahay anigu waan ka baxnay kiradii cidda siisun bal soo weydii adigu laakiin ma dareensan tahay in meel ay wasaaradaadu ku shaqeynaysay in xisbi loogu ololeeyo dhibaatada iyo haddaan anagu ka baxno dadkii iska lahaa iyaga xaq u leh wadaniba ka kareyn karayeen cidba ka kareyn karayeen urada ka kareyn karayeen marka wasaaraddu waaxda xagee u guurtay xagee u guurtay wasaaraddeeda dhexdeedana ka samaysanaa anagu hool nagu filan marka waxa iyaga ku qabsanaa waanu ka maaragtay waad ka maaragtay wana xiyaraadkan wasaaradda gaarsiina ka mid